iyo awowgeedii reerku halku ka soo jeeda ayaa la eegi jiray edabta iyo xishoodka iyo asluubta ay lahaan jireen inanku isaga laftiisu wuxuu furmayn jiray inantoo geedka uu soo dhaafi jirin haddii uu dabco inuu la kaftamo uu tijaabiyo oo uu soo wareego iyaduna waxay kale u sii wareegi jirtay badanaa marka ay fahmaan ee iyaga oo su'aalo kooban ay ku wada hadlaan waxay ku ballami jireen tusaale ahaan guga oo kale la ballami jiray markuu gugudo ayaa la ballami jiray xilliga jiilaalka isuma iman jirin marka sahankooduna baaraan deg culus buu lahaan jiray marka de waa tii inanku markay inanta la hadlaysa halxiraalaha ku lahayd halxiraalana way isweydiin jireen oo tixraac bay hablu samayn jireen waa kii inankii inanta ku lahaa barnaamijkeena deexasho maanta waxa marti inoogu ah abwaan daahir aadan gorgor abwaan daahir aadan gorgor waa abwaanada dhif iyo naadirka ah ee ku xeel dheer afka Soomaaliga af Soomaaligu waxa la sheegaa inuu yahay luqadaha dabar go'aya ama dhalan guuraya sidaas darteed ayaa markasta barnaamijka deexasho waxaanu ku soo casuunaa qof mihnad u leh af Soomaaligii hore iyo af Soomaaliga hadda iyo dhaqan guurka af Soomaaliga haddaba abwaan daahir aadan gorgor ayaan waraysi kula yeeshay xarunta guud ee Maal TV abwaan ku soo dhawow Maal TV aad baad u mahadsan tahay aad baan ku salaamaya waan mahadsan tahay waan dhawahay shukran abwaan daahir aadan gorgor marka hore halkuu ku dhashay halkuu ku barbaaray bal horta waxaan ku dhashay isla magaalada Hargeysa waxaan ku barbaaray isla magaalada Hargeysa siiba markii dambana xagga miyiga ayaan u batay hawdka magaalada Hargeysa ayaan intii dambana aan u badnaa Hargeysa aanan ku barbaaray kuna dhashay siiba xaafadda iftiin la yiraahdo marka reer Hargeysa dadka hadda jooga ee waqtigan dunida guudkeeda ku nool Soomaalida waliba iyo dadkii hore bal isbarbardhig ku samee waxa iska bedelay iyo waxa ku soo kordhay horta waxa jirta waxyaabo fara badan ba horta imka nagu soo kordhay midda kale aaladahan casriga ah ee imka adduunka ku soo kordhayna qayb weyn bay ka sii qaateen dhaqan burburka xagga maaragtay dhaqankeeni wanaagsanaa suubanaa burbur weyn bay ka sii qayb qaateen iyaguna waxaana ku daliilaho ku muujinaysa oo taa lafteedii ku muujinaysa waxa weeye dhaqankeeni marka hore tixraac buu lahaan jiray oo waa tii la oran jiray haweenka iyo geelaba waa la hidaraaca gabadha waa la soo hidaraaci jiray oo waxa la wareysan jiray oo la eegi jiray bal hadda hooyadeed iyo ayeydeed iyo aabaheed iyo awowgeed iyo reerku halku ka soo jeeda ayaa la eegi jiray dadnimadooda iyo dal dhaqankooda la tixraaci jiray inankana inantu kamay madhnayne xasanow sidaas oo kale ayaa iyaduna dusha ninka ay calafka la wadaagi doonto ayaa iyaduna dusha ka sahamin jirtay bal dadka uu ka soo jeedo duntooda la raaci jiray marka waxay inanta lafteedu ay ku urgeli jirtay bal nin hanan kara oo awowgii iyo aabihii iyo maaragtay iska soo dhaxalkoodii dad maaragtay maaquula oo dadnimo wanaagsan oo dun fiican waxa u dhaxeeya faraq weyn faraq weyn oo u dhaxaysana waxa kamid ah maanta bilmatalan inantu telefoon baabi kala hadlaysa oo ka wada xidhiidheenba halka horeerku inaga sii dhacay maalin baad wada sheekaysateen ama laba cishaabad wada hadasheen ama maalin qura wada hadasheen waxa laga yaabaa muuqaaga inaan arag waxa ku leeyahay kelmadda la yaabay madaxaad ii saarantay madaxa waan ka helay waa burburkeena ku dhacay hay eeg iyo hasaawaha waxa isweydiin leh hasaawaha maanta jooga waxa hasaawa aad moodo inuu indhalaan iyo dhigala u badan yahay waxa weeye horta qofkii mabaad arag dabeecadiisii waxba kamaad baran horta inaad qofkii dabeecadiisii aad horta wax ka ogaato oo dadnimadiisa u yara dhaba gasho oo bal hadda aad horta muuqiisana aragto bal hadaladiisa aad miisaanto soo maaha dee caailadan casrigaaba waxay nagu soo kordhisay waad isbarateen oo telefoon baaba la iska bartay ama maalin quraaba la is arkay madaxaadii saaranta waan kaa helay bay ku leedahay waxaan la yaabay hadda kelmadda madaxaadii saaranta waan kaa helay isna la yidhi waan kaa helay bay leedahay hortay maanta halka jabku ka dhacay waa halkaas horta ibtiladu ka timi miisaankii la isku soo miisaan jiray baa meesha oolin kadib waxay noqdeen hablaha maanta waxay noqdeen
iga dhal aan kuu dhige iga dhal aan kuu dhige idhe aan dhaqaaqe idhe aan dhaqaaqe iyo idhiib aan kaa dhaqde saddexdaas horta maanta u badan yihin saddexdaa bal aynu ku horayno iga dhal aan kuu dhige ha almacnaa waxaad arkaysaa in baa markiiba isguursanaya arooskood baa si fiican baa looga tumaya waa la isugu imanayaa waxaad maqlaysaa bil gudaheeda ama 3 bil gudahood way kala yaaceen marka halkaas waxay noqonaysaa inantii ilmihii wax laga yaabaa inay kaagaba tagto ay tidhaahdo dee wakaas ilmahaagana hayso marka waxay noqotay taasi iga dhalan kuu dhige